waxaan doonayaa in dul istaago inaan dhowr jeer iyo lixdii waxaan samaynay foundation aan u bixinay cigaal foundationka ilaa imikii muuhana qaaday ilaa imikadan xagga dawladda ayaan ka hala qaadin waayo dawladda ahayd inay hogaamiso inay tiiriso haddii laga tegi waayo madaxweyne siilaanyo dawladdiisii oo xoogay dhaqdhaqaaqsay cabdicasiis maxamed saalino markaa wasiirka marka iyaduna adugu waxa dhacayba halkaa lagama qaadin way cabdicasiisna markiiba waa shaqada ka tegay isagoo hawshooda bal arrinkaa waxaynu doonaynaa bal in la dhaqdhaqaajiyo waa wixii laga qaban karaa madaxweyne ku-xigeenkii waa nala joogaa wasiirkii maaliyadda waa nala joogaa wasiir saleebaan waa joogaa marka cabdilaahi maxamed ducaale isaga naan magacaabay dhowr jeer magaalada joogay waa noo yimi isaguna xafladda arrinkii foundationka sidaasuu u taagan yahay waana meeshii lagu ururin lahaa wax kastoo la rabay inoo qabto anigu 20 sano 14 sano maalintuu marxuumku dhintay waa sidaa loo sheego waxba kama tegin waxna ma dhigan jirin ehelkiisaana ugu qatanaa oo annaga ugu dhaweyn oo sidaa ahayd 14 sano waxaan ku jira aqal kiraa aqalkii kirada ahaa markaan ku jiri kari waayey baan u guuray meel barigeed riyaalisiiyey dhinac aan yar xaadhay gurigii dawladda ku jira ingiriiska gurigii waa sidii madaxweynayaashii waxaan cabasha way jirtaa kolley waayo intii madaxweyne Soomaaliland soo martay intii madaxweyne ku-xigeen soo maray intii baday guryaha loo dhisay iyo daara cadcad laakiin anigu weli aqalkii ingiriiska ku jira oo jingaday ka qaaday dee garan maayo halkan waa laga amaanaya maxamed ibraahim cigaal waxaa la leeyahay Soomaaliland halka keenay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada uu dhigay garan maayo haddana waxaasi ah dhulkii uu na siiyey daahir riyaale kaahin weli dada yara degan weli dhinac baa laga degan yahay weli waa qabyo taasna waanu faraynaa madaxda qaranka intaa wax nagala qabto ama dee la yidhaahdo cigaal wax loo qaban kari maayo marka dee bulshadiina waa joogtaa way nagala qayb qaadan haday dawladdu markaa u taagweydo cabashadaasaan gudbinayaa arrinkii waa la dhameeyey رمضان بين كسب حناي شوال بينه وين كجرنا ورتوان نود عينيا مركه هره إلهي بوجينا برعات كل مريم إن دلكين إلهي نوصل خيره إنا نسعاونا رمك اسقعاونا سيد إلهي شيء نوصل ما إنا نسعاوين إنا نتذكر ليته جرجرنا أينا ضعفين أيان إنه ود عينيا waxaan inoogu dacaynayaa siyaasiyiinteena inay fahmaan si walaysu naceemin waxay naga dhaxeeyaa inuu hal shay yahay waxaa loo tartamaya inuu hal kursiya inuu hal nin ku guulaysan karo iyo ninkii ilaahay u qoro waxaan leeyahay ilaahay tubta toosan hayna tuso xurguftu ha iska yaraato waayo kursigaan qaybsamaynba ninka ay la guuleeya iman doona waanu idin wada ducaynaynaa dhammaantiin wax kaloo inaga dhexeeya ma jirto dalku waa dalkii dadku waa dadkii nabadgelyada ganacsiga maxaan idhaahdaaye jaamacadihii wax walba ilaahay haynoo barakeeyo suuqii shalay gubtay ee waaheen ilaahay iyagana waxaan uga barayaa inuu tacwiid khayr qabta inuu ilaahay siiyo oo arrinkaa loo wado mid saldhiga oo wuxuudii soo bedela inaa uu noqdo aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay duco caawa halka ka qaata soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu heelo had iyo jeer waxa weeyaan organizerkayga ugu weyn taariikh fara badan oo hayaa waa nala soo shaqayn jiray ilaa madaxtooyadii dee qoladii wuxuu ahaa meediyaha ee aflaamta duubi jiray isagana waan u ducaynaynaa iyo intii kale taariikhda inoo haysaaba inay noo soo ururiyaan